taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cabdu Cali Sanka oo ay weheliyaan saraakiil ciidan oo uu kamid yahay xeeryaalaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 12aad gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Kaysi ayaa kormeer ku gaaray xeryaha ciidamada xoogga ay ka degan yihiin degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidanka xoogga ee Cadaade ku sugan ayaa taliyaha iyo saraakiisha la socota warbixino ka siiyay howlaha ciidamadan ay hayaan oo ay kamid yihiin xoojinta ciidanka ku sugan furimaha fog ee gobolka Mudug iyo xaqiijinta amniga gudaha deegaanada xorta ah oo ay ka taageeraan howlgallada gaarka ah ciidamada kale ee qalabka sida taliyaha qaybta 12aad General Maxamed Cabdu Cali Sanka ayaa ciidamadan iyo saraakiisha hogaamiso ku amaanay doorka ay ka qaataan sugidda ammaanka deegaanada Galmudug isagoo ku booriyay inay u diyaar garoobaan howlgallo ka ballaaran kuwii hore u socday si loo wiiqo awoodda firxadka nabadiidka ah ee dhumaalaysiga ku jooga deegaanada Galmudug inaan Cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 12aadna taariikh weyn ka galayso waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahayna madaxda aan u farno waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku sameeyno gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Kaysi xeeryaalaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 12aad oo booqashadan qayb ka ahaa ayaa ciidamadan kula dardaarmay ilaalinta sharafka ciidan iyo dhowrista shacabka ay u adeegayaan xilliyada dagaalka saraakiishu aan leeyahay ciidanka si cadaalad u la dhaqmo ninka xaq la xaqiisa qarinina ninka dalcaad leh ninka darajo leh ninka u baahan fasax ninka xanuunsan ha qarinina ninka xunna ha qarinina askarta cadaalad loo sameeyo kan xun iyo kan fiican hala kala saaro yaa intaba yaa la soo dhaqaldin teeda kale guula idin rajeenaya caafimaad baan idin rajeenaya bil Ramadaan waa soo socotaa yaa hal la iscafiyo caloosha la isku furo si fiican difaaca iyo qayrka soo soo socdo si ay u gudano aan gacmaha isqabsan wafdiga taliyaha qaybta 12aad oo safarkoodan kaga ambabaxay magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta taliska qaybta 12aad ayaa kormeerkan ku sii maray fariisimo ciidamada ammaanku ku leeyihiin inta u dhaxaysa labada magaalo waxaana qorshahan qayb ka ahaa unuga wacyigelinta qaybta 12aad sida abwaanada iyo hobolada horseed ee ciidanka xoogga dalka Cabdullaahi Warsumar oo warbaahinta qaranka Dhuusamareeb inaan Cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 12aadna taariikh weyn ka galayso waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahayna madaxda aan u farno waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku sameeyno saraakiishu aan leeyahay ciidanka si cadaalad u la dhaqmo ninka xaq la xaqiisa qarinina ninka dalcaad leh ninka darajo leh ninka u baahan fasax ninka xanuunsan ha qarinina ninka xunna ha qarinina askarta cadaalad loo sameeyo kan xun iyo kan fiican hala kala saaro yaa intaba yaa la soo dhaqaldin teeda kale guula idin rajeenaya caafimaad baan idin rajeenaya bil Ramadaan waa soo socotaa yaa hal la iscafiyo caloosha la isku furo si fiican difaaca iyo qayrka soo socdo si ay u gudano aan gacmaha isqabsan